madowgaaga kaan rabin muuqaaga kiimicin bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaasheen qiimaha iyo qaayaha lagu barnaamij aan ku eegayno xaaladii dalka Soomaaliya iyo gumaysigii iyo taariikhda uu leeyahay dalkeena hooyo iyo ururkii Israa'iil ee gobonimada aan maanta aan ku noolaanay u soo halgamay haddii aad nagu cusub tahay channelka fadlan subscribe noo saar si aad u hesho muuqaalada waa kan Cabdulla Sanay Cumar oo iga waramaya xaaladii gumaysiga dalka iyo taariikhda uu leeyahay dalka Soomaaliya koonfur bari Asia waa bahayso bariyaas waa 740 waa kala saaray Bangladesh Hindiya iyo Pakistan waa la kala saaray Bangladesh iyo Hindiya 70 dhaw sababka waa la kala saaray waa dareynay Soomaaliya marka Ingiriisku markuu 40 halka qabsaday xisbigan sameeyay 46 wasiirkii arrimaha dibadda ee bariga joogay muxuu ahaa Ingiriiska dawladihii ku guuleystay dagaalkii labaad ee adduunka muxuu ahaa 1946 wuxuu hor dhigay waxaan soo jeedinaynaa Soomaaliya ama aan danayna Soomaaliya hal dal in loo dhiibo lagama hoos qaadan marka Faransiis Afrika aqoon buu lahaa laakiin Ruush iyo Amerikaan Afrika aqoon uma leh lagama hoos qaadan Ingiriis wuxuu culayska soo saaray Muqdisho xamar buu culays soo saaray in laagada la xoojiyo oo si fiican muxuu ah laagadana wuxuu kala hadlay wuxuu yiri war waxaan doonayaa laba qodob baan idinka doonayaa gobonimada inaan idin gaarsiiyo Soomaaliya dhan ana isu keenayo gobonimada inaan idin gaarsiiyo koma weeraskana aad ku beertaan gobonimada inaan ugu idin gaarsiin aad dalbataan Soomaaliya ana isu keenay NFP baashi inta kale ana haye baashi muxuu ahaa Djibouti ana doonay jasiiradda yara saqotara la yiraahdo wuxuu waa keenaya oo annagaba nagu hadda Yaman taayso oo arrin aad muxuu ahaa xasaasiyadeeda ayuu ka hadlay aqoontu way iska yareed xadaaradu waa yareed Talyaanigu saameyn badan buu ku lahaa Ingiriis fodhiwan Libiya iyo Eritrea waxay doonayaan hal soo arkaan 1984 baa la soo diray 1948 baa la soo diray wafdigaas 6 January bay yimaadeen waxaan u socdaa han hoolaata maalintii la dhihi doono maalintaasi 6 January yimaadeen waxa loo yimid Soomaalida oo wax farq badan u dhaxeeyo oo Talyaanigii shaqaystay oo xisbi uu sameeyay oo la yiraahdo conference la yiraahdo oo Talyaani doona oo u dacwiyay Soomaaliya in Talyaani lagu soo celiyo 30 sanadood kadibna muxuu ahaa in xorriyadii la siiyo hawshaas markii farqiga meesha la arko waxa la qoraba maalinteeda marka manabaxa sameeyay qoladii way ka baxday 12 January ayay leego samaysay banaanbixida ayadoo damaashaad ku jirto baa qoladii Talyaanigu taageersan Talyaani iyo qolo Carab oo meelaha laga keenay Liibiya iyo Talyaanigu ka sameeyay iyo qolooyin kale ayaa muxuu ahaa xabad ku bilaabeen xaruntii muxuu ahaa leegada halka dagaal baa ka dhacay dagaalkaas waa dagaalka la magac baxay Soomaaliya ha noolaato maalinta ay baxday waa maalinta Xaawo Cismaan Cali Xawataako ay ku dhimatay waa dagaalka waxa kale oo lagu diray dagaalka sida taariikhdu in bariso ama ku qoran buugga uu qoray oo the modern history of Somalia oo uu qoray professor Kelira I.M. Lewis oo British Ingiriiska u dhashay uu qoray maalinta waxa ku dhimatay 40 waxa ku dhimatay konton iyo muxuu ahaa 3 Talyaani ku dhimatay marka Soomaaliya laga reebo dhinaca kale gaalka wuxuu cadeynaa konton iyo 1 laakiin dhinaca kale ninka la yiraahdo Maxamed Sobe wuxuu cadeynaa 43 gaala inay maalinta dhimatay oo Talyaani ku dhimatay wafdigii marka wuxuu soo jeediyay maxaa rabtaan leegoy leegadii marka waxay yiraahdeen baqadin badanna way gashay sida anigu kulay aan ku xisaabtamayo dalkaana dhaqaale badan oo Talyaani ku lahaa waxa laga yaabaa iyaga laftooda 13 ilo dusay waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay kuwa afarta dawladood oo waaweyn oo dagaalkii labaad adduunka ku guuleysatay ayagu inay gobonimada na gaarsiiyaan Ingiriis filmin erigas qoladii conference oo Talyaanigu taabacsaneen waxay qoraalay u dhiibeen guddiga isla waxay yiraahdeen waxaan rabnaa Talyaani in loo soo celiyo oo 30 sanadood dib loo xukumo kadib gobonimada la siiyo arintaas Ingiriis waxay ku noqotay ama kaag
ay afkalaqad hargihii uu inta daboolay UN kana waa waaye markii United Nations ama dawladaha weyn u jeedinay 46kii waa laga hoos qaadi way haddana laagadii wuxuu ka rajaynayay waa shaqayn weyn ingiriis marka waaga ku bariyo xamar waa ka sabray arintaas marka waxay keentay laagadii ingiriis inuu jigijiga uu bixiyo awalba heshiisyo badan jira san dhulka joogay 48kii Janaayo inta bishii September 23 inuu yiraahdo heshiis kale la galayaan amxaarada oo yiraahdo dhulkan waxaan ku wareejiyay idinkan muxuu ahaa Ethiopian ku wareejiyay amxaaran ku wareejiyay jigijiga maalinta muxuu ahaa dagaalkii ka dhacay ama banaanbixi 25 Soomaaliya ku dhimatay rag iyo dumar bale marka maalinka ayada waa maalin Soomaalidu qadarin kula qayma kula waa 60kii gobolnimadii raggii keenay waa ayaga dad fara badan waa la helay gobolnimadana sideedu raadinteedu iyo haynteedu waxa adag haynteedu gobolnimo marka la doonayo ama ummad la howlgelinayo waxa weeyaan dad number walba aan xurowna mar walba leh laakiin kursiga marka lagu fariisto oo salka la dhigo oo dawladda la qaato maxaa dadku sugayaan waxay sugayaan waxay dadku ka dhaxay in laga garsoro ayay dadku shacabka sugayaan marka wax badan oo dhibaato baa yimid gobolnimadii 60kii baa la qaatay 60kii muddo la socday ilaa 69kii waa la kirifleeyay axsaabtu ha badnaato laakiin Soomaalinimada lagama tagi nidaamku axsaabtu uu fara badnaa 86 xisbi baa la furay 86 xisbi waad garan kartaan samacaan Soomaaliyeed oo qabaa'il muxuu ahaa markiisii horena mustacmar haystay muxuu ahaa konton sano Talyaani 52 sano Talyaani hore u haystay 10kii Ingiriiska 10kii dambe Talyaaniga oo dambe markii Talyaani 59kii bishii November baa loo soo celiyay Talyaani dib loogu celiyo koonfurta loogu dhiibo waxa soo dhan waxay keeneen talan waxoogaa wadaniyada iyo Soomaalinimadu dadku kamay tagin 9kii sano hore inkastoo nidaamku axsaabtu iyo mushkiladeeda lahayd way axsaabtu qabaa'ilay abuurtay doorashooyinka qaar dad baa ku dhima jiray waxaan ogahay degmooyin badan oo kala duwan oo balad weyn oo kamid tahay inuu ku dhintay waxaan ogahay ceeler inuu ku dhintay oo muxuu ahaa ninkii uu yiri wiil isaga uu dhalo kabtan iyo laba xidig wuxuu ma aqaan wiilkaada dhimay baa lagu wiilku ha dhintay kursiga ma helo marka Soomaalidu beriga xoogaa kursigu waxbay waa la weynay waxa dhinteen laakiin haddana Soomaalinimada iyo wadaniyada adeer waa jirtay oo waxba shaqeynay hada waagii dambana waxa yimid qoro ciidan ah yimid oo military oo Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariiso oo rakacayay timaashid xukunkaas nuxurkiisii wuxuu gacanta u galay dad muxuu ahaa ciidamada ah oo mataqaana ayagu ah dadkii Talyaaniga uu qortay oo lagu qabtay dagaalkii Ethiopia Talyaani uu qaaday dadkii loo qortay Talyaani uu qortay fajiistihii muxuu ahaa Benito Mussolini fajiisto ah Hitler ama qali jirteen oo ah mataqaana la dhigi jiray waa naasigii Jarmalka gacan saar baylaan dagaalkii labada adduunka wada shaqeynay dadkii Talyaaniga loo qoray oo Talyaaniga wuxuu qabsaday Ethiopia 1936 bishii May isagoo kaga soo kabtay magac xumadii ka raacday dagaalkii muxuu ahaa Eritrea dhinaca Eritrea uu ka soo qaaday 1800 muxuu ahaa 1896 uu ka soo qaaday dagaalkii Cadwa la magac baxay oo Eritrea dhinaca Eritrea Ethiopia waa lagu jibay macnaheedu waxa lagu jibay Talyaani waa lagu jibay barigaana waxa dalka xukuumaya hore waxa xukuumaya Melik marka lagu jibinayo Eritrea waaga dambe Ethiopia hadda la qabsanayeen waxa joogay muxuu ahaa Hayle Selassie joogay Hayle Selassie 40 sano dalka Ethiopian ku xukumay 44 xukumay marka Talyaani wuxuu kaga soo kabtay magac xumadii halka ka raacay Talyaanigu marka waxa weeye sida ayuu marka dibna loogu soo celiyo dhulka looga qabsaday annaga marka aan ku nimaado aan maanta ku keeno dawladda ciidamadeena marka ayagu laftooda waxay noqdeen xukunkii systemyadii Talyaaniga dadku soo jiray kiiska hore Talyaaniga 10kii dambe Ingiriiska 10kii dambe Talyaaniga dad system soo jiray
oo haddana ku jiray systemkii 9 sano oo doorashooyinka dalka ciidamadu hareeraha ay wada eegeen xukunka kama marnayn inay xukunka qabsadaan laakiin waxa is weydiin leh madaxweynihii markaa waa la dilay yaa sabab u ahaa ma waxaan ku eedaynaa shuuciyada waanta wadaagay marka qolan ku eedaynaa reer bariga markiism ma waxaan ku eedaynaa reer bariga ma waxaan ku eedaynaa yuhuudda iyo masaarido qudheeda may doonayn Soomaaliya annaga Itoobiya marna xiriir ma dhaxmaro lama doonayn marka intantu dawladii militariga ahayd adeerday waa gabtay muxuu ahaa hawshii looga baahnay way gabtay way fulan weyday dalka wuxuu gaaray in la isdilo xukunkii wuxuu noqday xukun aaciiliye gacanta wuxuu ku aruuray odaga xamasiyaad ee labadiisa wiil labada wiil waxa laga dadku inay ila yaabeen hadda koorna maalin baa labadiisa wiil war labada wiil ma ku dhalay labada wiil waa maxamed cali samatar iyo axmed salamaal cabdalle daflo waa labadiisa gacmood baa waana kuwa Soomaali ku laayo xukunkana sida u galay marka mushkulooyinkaas oo dhan muxuu ahaa maxamed siyaad caruurtiisu adeer deeriye maxamed siyaad baa lagu qabtay xamar ay ku qabatay UC waa noolyahay waa raadi kartaa ninkii rabo waa raadi kara waa noolyahay laba sanadood ku dhow buu xamar joogay dibadda baa la fiiday adeer adigu qaangaas niyar baa tahay baa lagu dununtu aabaha galay uma haysto cid adigu uma haystaan marka maxaa yimid marka waxa yimid jabhada yimid marka maxamed siyaad naashi waa laga saaray jabhada yimid jabhaduhu maxay ahaayeen waa jabhada aan lahayn political platform oo qabiil salka ku wadahay maxay dhaxashay waxay inay burburaan adeer rejiimkii hawshiisii markuu gabayna meesha laga saaro laga eriyo muxuu ahaa jabhadiina nuuca ay noqdeen shacabkii intuu ku soo dhacay meel cidlo ku soo dhacay shacabka ilaa maanta mushkulad baa taagan oo xalkeeda la isweydiinay oo Soomaalidu haysato 60 kan sano maxaan dhigi karnaa aan xorriyadu sheeganayno arabayna soo gabagabay 60 kan sano oo xorriyada aanu haysanay 9 sano waxaanu ku xiqnay 86 xisbi كومي الله تنسرنا وحن كجرنا متقنا دكتاتور بانو كجر كلي تليا حكون إني لبديس لا تليا أي معمولة مركي بربر كان دعينا جبهة يمدوا عن بوليتيكال بلاد فمله ووضع غيره وحنا كرش حال ترى حال سوماليا حال حد هينا حال الدول سيد سوماليا عقيد استاجيزة كجوك سنساو وهذا ما اللو باين دتكو دت با كجرو ما أنت محا أنا جانا لو بربوري maxaana loo ku dhiibay nidaamkan la leeyahay waa federaal nidaamkan federaalka ku wadanaynayo yay u shaqeynayaan waxay u shaqeynayaan oo baritaarayaan waxa weeye labadii ku shantii qubaradii Ingiriiska ahayd oo fariisatay muxuu ahaa wadanka Ingiriiska oo yiri war Soomaaliya maxay yeelnaa aan reero u qaybinaa reero ka dhigo aan niraado federaal baatiin reeraha laga dhigo dadka danaynaya nidaamkan hadda فكرتاasay taageerayaan waxa kale ay taageerayaan adeer Soomaaliya dalalkan diriska oo labada inaan u shaqeyno oo aanan muuqan ayaa la rabaa wax kale la doonayo Soomaaliya iyadoo reero kala socoto ay u kala dhuntaan Addis Ababa iyo Nairobi loo kala dhunto waa nasiib darro wali muxuu ahaa waxaan daba taaganahay wixii Soomaaliya eeday waa maxay tahay waa isku tiirinta iyo adeegsiga qabyaaladda war qabyaaladee intay wax geynaysa aan isweydiina ya jaanis u helay way qabyaaladaas waxa jaanis u helay qoladii ciidamada dalkan iyo shacabkan oo aan hub haysan oo dawladnimo doonaya ayaa laga shaqeeyay inay qori qaataan ay wax dilaan ama isdilaan ama laftiisa qofka laftiisa u bixi qabiil de kaasay wax u tari leh isku tiirin qabiil iyo adeegsigeedu kaasay wax u tari dalkan marka adeer qabyaalada waxba u tari mayso Soomaaliya way ku luntay waxaana la rabaa in la xisaabtamo adeer aqoonta ee ilbaxnimada marka la qiimeeyo maalintii xorriyada la qaadanay maanta ay ka badan tahay haddana maanta ayaa farqiga u dhaxeeya shacabka Soomaaliyeed ayuu maanta kaas ka foolxay waana nasiib darro aad nasiib darro waxa weeye war Soomaaliya siyaasadii geysay ee foosho xumeed ee kala geysay ee maanta dunida dacaladeeda ay Soomaaliya ku yaacsantahay gaar ahaan muxuu dalalkan diriska waa kuwa kulli qaxootigan kuna marka la tago dadkan hadda siyaasadda ku agarab raratada ama maalin goosata liga maalin goosto ma taqaanaas kuwan oo jibaalka soo goosto way marka kuwan maalin goosata siyaasadda ku uba bilowneen
adeer waxay soo ordaan Nairobi arsaba soo ordaan markay goortay Nairobi arsaba tagaan adeer hodheelada waaweyn fuulayaan ama ay ka soo dagayaan maqaayadaha wax ka cunayaan adeer gabdha Soomaaliyeed baa jooga oo kuwa Afrika ugu qiimaha badan oo dawarsanayo tuugsan indha u xiray adeer lacagtay meelahan ka qaadeen oo dadkan ka dhaceen ayay rabaan Nairobi arsaba in lagu cuno oo muxuu ahaayeen Kenyati iyo Ethiopian ayaa si Soomaali kale loo dhibaatay wax loo geynaa soo nasiib darama waxa dalka maanta ka taag waxa weeye adeer dhalinyaradu way soo halgameen waxa bay qabteen laakiin aan dhalinyaradu u soo laabtay marka dhalinyaro waa taa waqtigaas 13 ila howlgiis 69 sano dhalinyaradu way joogtay laakiin axsaabta nasaqday axsaabta faraha badan ayaa qabiil ka dhigtay oo waxay ku dhaxmeelmeen axsaabtii socotay markaan u soo laabno qoladii ciidanka dhalinyarada waaya waxaan hadda la hadlayaa qoladii ciidanka markaa usoo urur bay u sameeyeen ururka waxa joogi jiray Salaad Usmaan Roble Jango ana liira Maxamed Maxamuud waxa xogayo guudka Maxamed Xarko Maxamed wax badan ba laakiin ururku cid wax weydiinaysa ma jirin waa jireen waa urur ahaan bay u jireen laakiin cid wax weydiinaysa ma jirin leesh dalkaba waxa weeye odagay labadiisa nabada hadda ka hadlay waxa ku gacantiis ku soo aroor cid wax weydiinaysa ma jirin burburkan haduu yimid oo burburkan goortii u yimid de maxal shay dhalinyada maxay noqdeen waxay noqdeen cid kasta oo wax doonayso oo xeeladaysanayso oo farsamaysanayso waxay noqotay dhalinyaradu muxuu ahaa inay ku shaqaysato marxalad kasta lagu jiro leeyahay waxa la marka dhalinyaro idinku waxaan idin leeyahay wax barta hadda maanta waxaad ku howlantiin dhalinyaradu waan og waxa meelahan lagu adeegsan marka laga reebo tahriib iyo talawa iyo taabu waxaad ku howlantiin war waxaas horumar lagu gaarima waa inaad wax barataan oo hoggaan yeelataan si dalkan waqtiga la joogana idinka iskale mustaqbalka soo socdana idinka iskale arintaas oo dhan waxaad wax ku qabsan kartaan waxa weeye inaad idinku hoggaan yeelataan isku duubataan marka saa idin leeyahay meel aan hoggaan lahayn waxba ka socon maayo dalka halkan waxaan dhigay waa hoggaamiye la'aan way hoggaan taagan baa la arkay waxa loo baahay hoggaamiye bisil oo qaangaar siyaasadeed iyo mid maamulba ah oo aqoon dheeraad u leh arrimaha mataqaana maamulka khibradeeda leh heybad hoggaamineed leh dhaqan gobeed leh mataqaana nin loo soo joogsan mujtamac u soo joogsanay waa in la helaa hadii la waayo waa nasiib darro halkan waa idin sheegay ninka kursiga ku fariisto oo kursiga wuxuu u yimaadaa asoo wax badan laga yaqaan wada dheerna u soo maray midna goolad buu kaga soo baxay oo ka wadada dheer u soo maray shakhsiyadiisa dhaqankiisa wax badan baa laga yaqaan laakiin waxa kursiga markuu soo fariisto miisaan buu foolaya laba qodob baan ugu muhiimsan koow dadka uu magacaabay waa cinkee ninkan mas'uulka dadka uu magacaabay waa nuucee waa dad nuucee ah ma garat muxuu ahaa ma dad aqoon laba shaqada loo magacaabay aqoon mu leeyahay kartideeda ma leeyahay khibradeeda ma leeyahay waa nin cinkee qodobka labaad oo laga eegay waxa weeye ninka mas'uulka war ninkaan dad baa u yimaado la hadle jin lama hadla bini aadam baa la hadle nooca dadka u dhageysto waa cinkee waa kuwe nooca dadka bulshada dadka u dhageysto ma dad bulshada sumcad ku laha oo bulshada u soo joogsataa mase ila xafiiskan cid walba ku iimaanaysa waxyaabo fara badan ayaa muxuu ahaa ayaa ninka mas'uulka laga doonay marka dhalinyaro waxa laga rabaa maanta maalintii 15 May maanta aan u dabaaldegin dhalinyarada marka war idinku midnimadiina muuji aqoonna ku xisaabtama hoggaanna hal la yeesho waayo nin kasta oo wax doonayo waxa uu doonayo wuxuu sii maraa waa dhalinyaro u kacaysa marka waxa loo baahan yahay marka adeer dalkii waa kana oo waa burburkaana waxa u sabab qof walba wuxuu doonayaa inuu qabiil jaran ka dhigto ku furo halkaana waa ku celinaya waa idin sheegaya Soomaaliya qabiilkaas marka laga yimaado oo ka sii foolxin ma taqaan waxa weeye caalamku wuxuu leeyahay dabaqado kala reer galbeedku warshadley waa shaqaala joogo waa hantiilayaal baa joogo xakunku intooda badan tartanka waxa u gala mas'uuliyadda u sareyso dadka hantiilayaalka capitalism shuuciyadana dadka shaqaalaha tartanka u galo war annaga Soomaaliya iyo Afrika iyo Carabahan iyo marka la isku soo qaado adeer waxa jiro waxa la sameeyaa ma taqaanaa isbahaysi qabaa'il ku dhisan oo dhulka hoostiisa
kaa way kanay Soomaaliya eedow arintaasna dhalinyaro ka digtoonaada Soomaaliya ha noolato Soomaaliya ha israacdo dhibaatada Allah inaga saaro cadaweyna ha jabo daawada intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii aan ku eegayay taariikhda dalka Soomaaliya waxaa barnaamijka aad ka daawanaysaan Daraja TV kulan daawada haddii aad nagu cusub tahay subscribe